waxaan u soconaa duleedka Muqdisho oo ay soo gaarayaan qoysas fara badan oo ka soo barakacay guryahoodii kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha diyaaradaha Mareykanku ay geysanayaan dagaalada ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaraya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo deegaano kale si aan idinku soo gudbino sheekooyinkooda dhabta ah oo aysan inta badan warbaahintu soo bandhigin. halkan waa xero lagu magacaabo Allafuuta waxay ku taalaa duleedka Muqdisho gaar ahaan deegaanka Karis Valley bil ka hor waxa ku noolaa xeradan 860 qoys oo ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose laakiin waxa hadda ka soo duldagay 455 qoys oo dumar iyo caruur u badan kuwaas oo nafsadooda kala soo cararay qaar ka mid ah deegaanada ay al-shabaab ka sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo ciidamada dawladda ay xoojiyeen weerarada ka dhanka ah al-shabaab gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed dadkan ka soo duldagay dad horay barakac ugu ah xeradan ayaa qaarkood dhul aad u fog ugu soo lugeeyay caasimadda kuwa ayaa ku soo dhalay jidka intii ay naftooda la soo baxsanayeen halka kuwa kalena ay u suura gashay in ay gaadiid soo raacaan si halkan u soo gaaraan waxayna waqtigan wajahayaan dhibaatooyin kala duwan ma haystaan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo qabowga habeenkii banaankan ayayna maalin iyo habeenba sidan u jiifaan waxay helaana isla goobta ayay ku karsadaan mana haystaan suuli ay ku saxaroodaan Caasho Xasan waa hooyada 7 caruur ah waxay ka soo barakacday tuulo ku taala degmada Janaale oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab muddo hal bil ah ayay ku sugan tahay xeradan iyada iyo caruurteedana banaanka kaamkan ayay seexdaan maadaama ay halkan ku cusub yihiin isla markaana aysan kaamkan ku lahayn hooy ay seexdaan marka waxaan soo barkacnay colaadka iyo dagaalada iyo waxaan ka soo barkacnay diyaaradaha habeen walba korkaad iska wareegsayaan haday rabaan wax waa iska soo tuurayaan meeshii ma lagu noolaa karo rafaadka dhibka iyo naxdinka iyo leeg ka soo barkacnaaday dhibaatooyinka waa badanaay dadka soo gaaray xeradan waxaa ka mid ah haween ku soo dhalay jidka intii ay u soo socdeen xeradan iyagoo raadinaya nolol iyo meel ka nabdoon deegaankooda qaarkood ayaana hadda umul ku ah halkan duruufo aad u adag ayaana ku haysta xeradan waxaana ka mid ah Aamino Cabdi Cali oo ka soo barakacday Qoryoole waxaan soo barakacnay degmada Qoryoole baaha dadkan soo dhalnay rafaad dagaal wax daran soo marnay doqeymaha iyo dagaaladan soo barakacnay wax aan baahana cunto ma haysano guriyaal ma haysano mas'uul ma haysano biyo ma haysano diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa sanadkii tagay 2019 kaliya Soomaaliya ka geystay 52 weerar oo dhanka cirka ah kororka weeraradaas iyo dagaalka ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaraya deegaanada koonfur galbeed ayaa sabab u ah in dadkan ay ka soo barakacaan guryahoodii isla markaana ay soo gaaraan halkan oo ah deegaanka Karis Valley ee Muqdisho si ay u helaan nabad iyo waxay cunaan waa gaajo iyo dadkan dagaalkan hubkan dhooya ka soo araray unuga hungurooyin iska haysan hubka haysan waan qaban waayni waxaan xiriir la sameynay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta si aan wax kaga weydiino waxa ay dawladda ku og tahay dadkan ka soo barakacaya duqeymaha Mareykanka laakiin kama uu soo jawaabin wicitaankeena balse Xuseen Sheekh Cali oo ah gudoomiyaha macadka cilmi baarista ee Hiraal kana faalooda arrimaha amniga ayaan wax ka weydiinay sababta aysan dawladda Soomaaliya kaga hadlin duqeymaha Mareykanka ee soo barakicinaya dadkan iyo haddii ay sii socdaan waxa ka dhalan kara waxa dhacaysa haddii lacala marka sida hadda socota ay dawladuna afka xirato Mareykankuna uu fariimo aanan arinta dul tagaynin uu wado sida uu hadda ilaa hadda wado in ay arintaas si intii ay shabaab dhibi lahayd ay shabaab hadda caawiso oo shacabku xanuunka soo gaaray uu hiilo iyo garab istaag siiyo shabaab maadaama cidda dilaysa ay hadda tahay gacanteennii gacan caawinaysa way laakiin waa gacantii dawladda Soomaaliyeed marka arintaas arin dagaalka guud yani culays ku keenayo waaye iyo in shabaab ay taageero kale aysan hadda haysan si helaan hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa bishii Sebteembar ee sanadkii tagay 2019 waxay dawladda Mareykanka ku eedeysay in duqeymaha ay Soomaaliya ka geysanayaan diyaaradaha Mareykanka ay ku dhintaan dad badan oo shacab ah
laakiin taliska Mareykanka ee Afrika ayaa dafiray in ay dad rayd ah waxyeelo gaarsiiyaan. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.